kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqda aadamaha. toddobaadkii hore dhegaystayaal wuxuu inoogu joogay qodobka 34aad toddobaadkana waxaanu ka qaadan doonaa qodobka 35aad ka baaqashada amarka komishanka. faqradda koowaad, haddii aanu si ka duwan sharcigu u sheegin qof kasta oo ku guul daraysta in uu hortago komishanka iyada oo looga yeedhay in uu hor yimaado ama diida in uu dhaarto ama ka jawaabo su'aal la weydiiyey si sharciga waafaqsan ama diido qoraal uu hayo oo ku saabsan arrin uu komishanku gacan ku hayo, waxaa loo gudbinayaa xeerilaalyaha guud isaga oo maxkamad horteeda kaga oogaya dacwad si waafaqsan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta guud. faqradda labaad, xeerilaalyaha guud waxaa waajib ku ah in uu la howlgalo komishanka mar kasta oo ay howl uga baahdaan, sidaasna ay qoraal kaga codsadaan. qodobka 36aad, dhowrsanaanta xubnaha komishanka. faqradda koowaad, xubinta komishanka ah lama xidhi karo lamana geyn karo maxkamad haddii marka hore aan laga helin ogolaansho golaha wakiilada. waxaa ka reeban marka lagu qabto isaga oo dembi faraha kula jira aan ciqaabtiisu ka yarayn 3 sannadood. faqradda labaad, xubnaha komishanka, shaqaalaha komishanka iyo cid kasta oo ka qayb gashay arrin komishanku galay ama uu gacanta ku hayo laguma eedayn karo fal hawshaas komishanka la xidhiidhana dembi looguma raaci karo. qodobka 37aad, markhaatiyada komishanka. faqradda koowaad, komishanku waxa uu u yeedhi karaa dhagaysana karaa markhaatiyo. faqradda labaad, markhaatiyada komishanka uu u yeedho haddii loo baahdo waxaa la joogi karaa la taliyo sharci. faqradda saddexaad, komishanku waxa uu awood u leeyahay in uu dhaariyo markhaatiyada. faqradda afraad, caddayn kasta oo uu bixiyo markhaatigu waa la qorayaa. faqradda shanaad, markhaatiyada la howlgala komishanka waxa ay leeyihiin dhowrsanaanta komishanka oo kale mawduuca ay maraga ka yihiin. cutubka 5aad, qodobka 38aad, warbixinta komishanka qaranka ee xuquuqda aadamaha. faqradda koowaad, komishanku waxa ay u gudbinayaan warbixin sannad kasta dhammaadkiisa bisha Diseembar madaxweynaha iyo baarlamaanka. waxaa kale oo ay u gudbinayaan warbixin gaar ah madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka, guurtida iyo wakiilada haddii loo baahdo. faqradda labaad, warbixin sannadeedka komishanku gudbinaya sida ku xusan qodobkan waxa ay ka koobnaanaysaa xaaladaha guud ee xuquuqda aadamaha dalka ee xilligaas iyo dhacdooyinka gaarka ah ee mudan in warbixin gaar ah laga sameeyo. faqradda saddexaad, warbixinta gaarka ah waa in muddo bil ah gudaheed ay ku gudbiyaan laga bilaabo maalinta dhacdada, waana la kordhin karaa muddada haddii ay baadhistu dhammaan weydo, waase in aanay ka badnaan 3 bilood. faqradda afraad, warbixinaha ay komishanku u soo gudbinayaan golayaasha baarlamaanka lana ogeysiiyaa madaxweynaha iyo wasiirka cadaaladda waa in sideeda loogu dhaqmaa. qodobka 39aad, xog waraysi. faqradda koowaad, golayaasha xeerdejintu way u yeedhi karaan komishanka ama guddoomiyaha komishanka si ay wax uga weydiiyaan arrimo shaqadooda la xidhiidha. guddida golaha wakiilada u qaabilsan xuquuqda aadamaha waxay u yeedhi karaan guddoomiyaha komishanka ama xubnaha komishanka si ay wax uga weydiiyaan ama uga xog waraystaan howlo xidhiidha shaqada komishanka ama khilaafka komishanka dhexdiisa ah. faqradda labaad, guddida faqradda hore ku sheegan waxay komishanku siin karaan talooyin hawshooda la xidhiidha. faqradda saddexaad, marka ay muuqdaan xaaladaha ku xusan faqradda koowaad ee qodobka 21aad ama cabashooyinka la garowsan karo oo xaaladaha
ku saabsan ay soo gaadhaan guddiga golaha wakiilada u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxa ay baadhis ku samaynayaan cabashooyinka iyaga oo ka soo diyaarinaya warbixin talooyin iyo soo jeedimo xambaarsan golahana u soo gudbinaya. faqradda afraad goluhu talooyinka iyo warbixinta guddiga marka ay ku habboon tahay waxay goluhu u gudbin karaan madaxweynaha haddaanay ka qaadan tallaabooyinka ku sheegan qodobka 21aad ee xeerkan. qodobka 4aad khilaafka komishanka. faqradda 1 haddii uu soo baxo khilaafaad xubnaha komishanka dhexdooda guddiga golaha u qaabilsan xuquuqda aadamaha waxay isu keenayaan xubnaha komishanka waxayna talo u soo jeedinayaan in ay dhexdooda ka dhammaystaan. faqradda 2 haddii ay suurtogeli weydo in xubnaha komishanku dhexdooda khilaafka ka dhammaystirtaan waxay dhegaysanayaan dhinacyada iskhilaafsan iyaga oo mar kasta ku dadaalaya in ay khilaafka sulux dhinacyadu ku wada qancaan ka gaadhaan waxayna ka soo saari karaan go'aamo iyo talooyin ay khilaafka ku soo afjarayaan. faqradda 3 haddii khilaafku soo noqnoqdo ama go'aamada iyo talooyinka guddiga la qaadan waayo waxay guddigu go'aamadooda iyo talooyinkooda u gudbinayaan madaxweynaha haddii aanu golaha laftiisu qaadin tallaabooyin waafaqsan xeerkan. faqradda 4 madaxweynuhu waa inuu tixgeliyaa go'aamada iyo talooyinka golaha ee ku xusan faqradda hore. cutubka 6 qodobka 41aad komishanka qaranka ee xuquuqda aadamaha waxay dhaqaalaha ka helayaan qorshaha dhaqaale ee miisaaniyadda qaranka loogu qoondeeyey. b kaalmada hay-adaha caalamiga ah. c deeqaha gaarka ah. faqradda 2 dhammaan dhaqaalaha komishanka qaranka ee ay helayaan iyo kharashaadkooda waa in ay ka muuqato warbixin sanadeedka komishanka. faqradda 3 komishanka qaranka waxay yeelanayaan baan akoon ku salaysan qaabkooda shaqo. faqradda 4 xisaab xidhsanadeedka komishanka waxa weeyaan dhammaadka sanadka waana bisha Diseembar. faqradda 5 xubnaha komishanku waxay yeelanayaan gunno madaxweynuhu ku soo saaro digreeto. qodobka 24aad dhaqangalka. xeerkani waxa uu dhaqangelayaa marka ay golayaashu ansixiyaan guurtida iyo wakiiladu madaxweynuhuna saxeexo laguna soo saaro faafitaan rasmi ah. intaa dhegeystayaal waxaa inoogu dhammaaday xeerkii komishanka xuquuqda aadamaha ee qaranka Somaliland. waanu dhaqangalay xeerkani waana la faafiyey. dhankagana bixi xaq dhowr gudub waa laga koree. tan iyo intaanu barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.